Soodo Xuseen Maxamuud oo ah khabiir dhinaca ciyaaraha sportska dabcan gaar ahaan ayaa ila faaqidaysa soodo bal soo dhawow ugu horeyntii wararkii ugu dambeeyay ee ciyaarahaasi xiisaha leh ee kooxdan Iiraaniyiinta oo si weyn aad loogu xiiseynayo ayaga iyo New Zealand wixii dhex maray sahar waa mahadsan tahay sida aad hore u sheegtay ciyaartan waxa ahayd mid aad maaragtay xiiso gooni u leh oo dadweyne fara badan oo caalamka ku nool ama Mareykanka ku nool oo meelo badan ku nool ay wada sugayeen sida aad la socotane maadaama dhanka siyaasadda dawladda Mareykanka iyo maaragtay wadanka Iiraan waayidii ugu dambeeyay ee maaragtay xulafaad u dhaxmarayay madaxweyne Trump ayaa maaragtay FIFA maaragtay xilligii uu World Cup la sheegay in lagu qaban doono wadanka Mareykanka Iiraan ay u soo baxday oo ay ku guuleysatay oo ay xaq u leedahay inay ka qayb qaadato tartankani ayaa waxa maaragtay buuq badan magaalada dhaxmaray taasi oo la isweydiinayay miyuu u ogolaan doonaa in maaragtay Iiraan oo matalaysa dawladda hadda jirta ee ka qayb qaadata ciyaaraha adduunka waxa soo baxday sida aan la socono in maaragtay booska Iiraan lagu bedelo Talyaaniga oo maaragtay asaga fursad u heli waa inuu ka soo qayb qaato ciyaaraha adduunka oo isreebkii wadanka Bosnia oo booskaasi ka galay nasiib wanaag FIFA ayaa ku guuleysatay maaragtay inay ka dhaadhiciso Donald Trump inay u ogolaadaan inay ka qayb qaataan Iiraaniyiinta xulka kubadda cagta ciyaaraha adduunka laakiin nasiib darro maamulka Iiraan iyo hadii ay noqoto madaxweyne Trump intaba maaragtay waxay isku afgaran waayeen halka saldhig u noqon doonto taasi oo markii dambe Iiraaniyiinta ay ka codsadeen wadanka Mexico inay halkaasi ay saldhig ka dhigtaan magaalada Taiwan taasi ayaana maaragtay u fududeysay oo ciyaartan inay ka qayb qaataan nasiib wanaag gobolka California wuxuu xuduud la leeyahay maaragtay wadanka Mexico waa gobol maaragtay aad isugu dhow yihiin sidaas darteed waxa ay noqotay inay halkaasi ku tababartaan oo halkaasi ay joogaan kadibna ay soo duulaan oo ciyaarta ka qayb qaataan waa markii ugu horeysay ee carrada Mareykanka soo caga dhigtaan ayagoo ma aragtay matalayo xulka maaragtay wadanka Iiraan sida aan sheegnayna maadaama magaalada Los Angeles taageerayaasha maaragtay badan ay maaragtay u soo imaadeen Iiraaniyiinta oo maaragtay dadweyne badan ama shacab badan oo u dhashay wadanka Iiraan oo marka diaspora loo yaqaan ee halkaasi degan yihiin oo xaafado badan ganacsi weyn ay ku leeyihiin 70,000 oo qof in ka badan ayaa ciyaartaasi ka soo qayb gashay maadaama New Zealand wadan yar u yahay taageerayaashiisa aad ay u yarayeen marka waxa la isdhihi karaa sahroy in ka badan 50% taageerayaasha inay maaragtay Iiraaniyiinta taageerayeen iyo kuwa badan oo Amerikaan ama wadamo kale u dhashay oo ku xumeynaya ama ku adkeynaya Donald Trump inay maaragtay Iiraan taageerayeen waxa xusid mudan in kooxda 48 saac oo kali ah la fiisooyinkooda dalku gal ee Mareykanka inay haystaan axad ayay yimaadeen isniinta ayay joogeen marka way noqonayaan talaadada maanta mar walba oo ciyaar leeyihiin way soo duulayaan hadana dib ayay u noqonayaan oo waxay ku noqonayaan halkii base-ka u ahayd ee Juan ee Mexico oo ay markaasi garoon ka dhow goobta ay degan yihiin ay ku tababaranayaan in and out ayaa la yiraahday Mareykanka gudihiisa waa markii ugu horeysay oo koox kubadda cagta ama ka qayb galayso World Cup-kii ciyaarihii dunida oo dhacaya hadana loo diido dalku galkii madaxdoodii isla markaasina wadan kale ayagoo degan ay ciyaarihii sidaasi wadankii ugu soo duulayaan ama uga sii socdaanba marka arintan sideebay garoonka markii ay soo galeen kooxda loogu muujiyay si diiran in loo soo dhaweeyay si fiican ayaa loogu muujiyay sahra taageerayaal badan ayaa aad u soo dhaweeyay calanka Iiraan ayaa la arkayay maaragtay halkaasi ka babanayo mararka qaar waxa la arkay calanka Iiraan iyo calanka Mareykanka oo isku dhagan inay taageerayaasha maaragtay la soo baxayeen laakiin marka aad fiirisid shucuurta ama moraalka kooxda Iiraan ma ay ka muuqanin koox la ciil kaambiyay ama ma aragtay luuq la geliyay oo ma aragtay meel ay rabin ay deganaayeen ciyaar aad u qurux badan ayay soo bandhigeen weerar fiican ayay lahaayeen xulka New Zealand weligii maaragtay guul kala ma soo hooyanin ciyaaraha adduunka markii ugu dambeysay ka qayb qaataana waxay ahayd sanadii 2010 markii South Africa lagu qabanayay laba ciyaartoy kamid ah ayaana maaragtay markaas u dheelaya ayaa la socdo oo maaragtay khibradii la imaaday Chris Wood oo u dheelay naadiga Nottingham Forest kabtankooda ah ayaana waxa uu yahay ciyaartoyda mid kamid ah
dadkii u dheelayay nasiib wanaag maaragtay New Zealand ayaa goolka koowaad daqiiqadii 7 la hormartay oo maaragtay Just ayaa dhaliyay baas uu siiyay kabtankooda Chris Wood Iran ma aysan isdhiganin ma aysan dhaliilin weerar ayay soo qaadeen kubadda labada kooxood markaa fiirisidna waxay ahayd Bruniga wax la yiraahdo maaragtay defense ama difaac may galin labada naadi waa weerar ayuu ahaa dhanka ka keen macnaha 45 daqiiqo ciyaarta ugu horeysay Sahar waxa dareemaynay maaragtay maadaama aan fiirsanaynay sidaas ay nagu dhaftay daqiiqad macnaha waaba soo afjarmatay marka Iiraaniyiinta ayaa 32 daqiiqo bareejeeyeen ciyaaryahanka Ramin ayaana goolkaasi dhaliyay waxa lagu kala maray haafkii hore 1-1 taageerayaasha maaragtay aad ay u dhiirigelinayeen naadiga markii la isku soo noqdayna markaleeto New Zealand ayaa goolka la hormartay isla ciyaaryahanka Just ayaa 54 daqiiqo dhaliyay 10 daqiiqo kadibna waa ay bareejeeyeen xulka qaranka Iran ciyaarta ugu dambeyn waxa ay ku soo afjarmatay 2 gool oo maaragtay koox kasta dhibicdii ay qaateen 2 goolna ay dhaliyeen ciyaartooyda ugu fiicnay kooxda Iran waxaa kamid ah Rahimi oo maaragtay u dheeli jiray naadiga Benfica naadiga Inter Milan oo Champions League finalkii muddo 2 sano ka hor sanadka 2 sano ka hor soo gaartay ayuu kamid ahaa ciyaarta xigta ay dheeli doonaan wadanka Iran ayaa su'aasha waxay tahay la isweydiinayo miyay maaragtay la imaan doonaan qaab ciyaareedka ay hadda u dheeleen mise waa uu ka bedelnaan doonaa haddii ay baydmo si markii loo eego waxaa la leeyahay World Cup-ka ama ciyaaraha adduunka 100 sano taariikhda waa markii ugu horeysay oo wadankii marti gelinaya iyo wadamadii ciyaaraya mid kamid ah ay siyaasad ahaan ishaystaan siyaasad ahaantaas ishaystaanna haddana ay saameyn ku yeelatay ciyaarihii iyo dalku galkii fiiso oo kooxda ay ku imaanayso gudaha wadankaasi ay ku ciyaarayaan maxaa laga baran karaa arrintan Sahra sida aan la socono horta waa markii ugu horeysay 3 wadan ee ciyaaraha adduunka isla qabtaan markii ugu dambeysay 2 wadan wada qabtaan waxay ahayd waqooyi maaragtay koonfurta Korea iyo Japan 2002 waagaasina waxa ay maaragtay FIFA rabeen inay maslaxa wada dhigaan labadan dal oo xulafo maaragtay markaasi ay ka dhaxaysay ciyaari adduunkana waxay ku soo afjarmeen oo Brazil ay ku guuleysatay aad ayuu u qurxanay laakiin wadamadii ka qayb qaadanaysay FIFA ma aan loo diidaynin maxaa ku raada Jarmalka ayaa qabtay wadan kasta oo markaas u soo baxo iska badaa ciyaartooyda iyo qoysaskooda iyo maaragtay shaqaalahooda iyo dhaqaatiirtooda xataa taageerayaashooda ayaa loo ogolaa marka waa markii ugu horeysay wadan ciyaar adduun lagu qabanayo oo wadamada ka qayb qaadanaya qaar kamida ay ku jiraan waxyaabaha loo yaqaano Trump ban macnaha madaxweyne Trump heshiiska oo soo saaray uu u ogolaanayeen wadamadaasi oo saan ognahay Soomaaliya ay ku jirto Yemen ay ku jirto Suuriya ay ku jirto wadanka Ciraaq ayaa ka qayb qaadanaya ciyaaraha adduunka waa uu ku jira listigaasi saan la socono wadanka Haiti ayaa ku jiro oo maaragtay dhibaatooyin dabiici ku dhacay muddo sanado ka hor marka saan sheegnay ciyaarahan inkastoo dadka ay dhahaan ama madaxweynaha FIFA soo jecel yahay uu rabo inuu dadka ka dhaadhiciyo kubadda cagta iyo siyaasadda xabba iskama galin laakiin 100% waxa ay xadaatay sanadan macnaha munaafiqnimada markii loo fiiriyo ee reer galbeedka in kubadda iyo maaragtay siyaasadda uu isku mid yahay siyaasadda meelba ay gashay waa gartay marka waxaad iiga warantaa hadda kooxda yay balansan yihiin inay ciyaaraan wixii hadda Sahra waxa isku group yihiin Belgiumka iyo Egypt iyo Belgium ayaa maaragtay ciyaartoodii galabta ayagana dheeleen waxay ku soo afjarmatay hal waxyaabaha kale aan sii raacina waxay tahay ciyaar kasta oo maanta dhacday waxa ay ku soo afjarmatay bareejo Belgiumka wuxuu kamid ahaa wadamadii lagu tirinayay inay ka maaragtay ku guuleysan karaan ciyaaraha adduunka Masar ayaa maaragtay goolka koowaad 20 daqiiqada 20aad la hormartay qaybta dambe ciyaarta ayay maaragtay Belgiumka dhaliyeen goolka bareejada 1-1 ayayna ku soo afjarmatay ciyaarta xigta Iiraaniyiinta waxay is arki doonaan hadii ay baydmo masaarida oo ay ku wada dheeli doonaan magaalada Seattle gobolka Washington sida aan ognahay Iiraaniyiinta iyo Carabta sidaas isuguma fiicno xiriir maaragtay aad u xiito dheerna ma dhaxmara labadooda marka ma noqon doontaa ciyaar xulufo maaragtay ishuruuf ciyaartooyda dhaxmarta inkastoo Egyptianka ciyaartooy fiican sida weeraryahankii hore Liverpool Mohamed Salah
maxaa ku dhaha weeraryahanka naadiga Manchester City Umar Marmuush ay u dheelaan marka loo fiiriyo waa ay ka ciyaartooy fiican yihiin waana way hore ugu guuleysteen koobka qaaradda Afrika waynu arki doonaa haddii eeba idmo sidoo kale ciyaaraha kale dhacay sahra aan ku darsaday waxaa jirtay Spain oo aad la socotid oo 2010kii 16 sano ka hor ciyaarihii adduunka aan goobjoog u ahaa ee South Africa ku guuleysteen ayaa waxaa ma aragtay maanta ay la kulmeen fajac dhanka kubadda cagta oo ay bareejo la galeen wadan yar oo qaaradda Afrika ka soo jeeda la yiraahdo Cape Verde 0-0 ayay ku dhamaatay goolahayaha kooxda wadankaas u dhashay oo 40 sano jiro ayaa waxa uu badbaadiyay 7 kubad oo u dhagmatay inay gool noqoto ciyaaryahanka Lamine Yamal oo ah ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee da'da yar ee qaaradda Yurub Nico Williams maaragtay Fabian Gavi ciyaartooy badan oo maaragtay marka la isdhihi kara xidigaha ugu sareeya caalamka ayay Spain wadataa marka waxyaabaha maaragtay ajaa'ib kale ee maaragtay groupka ciyaarihii koowaad ee hadda dhacay la arkaya ay kamid tahay Saudi Arabia oo maaragtay asagana wuxuu la dheelay Uruguay ciyaartoodii waxay ku soo afjarmatay 1-1 Sacuudiga ayaa goolka la hormaray inkastoo maaragtay daqiiqadii ugu dambeeyay 8aad ciyaaryahanka Aruho oo goolka ka dhaliyay lagu bareejeeyay 1-1 ayayna ku soo afjarmatay sidaan hore u sheegay ciyaar xiiso badan ayaa soo socda haddii eeba idmo oo maaragtay maanta dhici doono waxaa kamid ah ciyaarta Faransiiska iyo Senegal axmari doonto sida aad la socotid Sahro xulka qaranka Faransiiska waxa uu dheelo marka la fiiriyo ciyaartooyda u dhalatay 50% in ka badan ciyaartooy ka soo jeeda ama qoysaskooda ay ka imaadeen qaaradda Afrika marka waxaa la leeyahay dadka qaar ay leeyihiin Afrika ayaa Afrika la dheelaysa marka Senegal ciyaartooy fara badan oo maaragtay Sadio Mane u dheeli jiray Liverpool oo hadartan kooxda Nasr u dheelo oo aad u fiican ayaa maaragtay ay qabaan golayooda aad u fiican yahay difaaca aad u fiican yahay ciyaar xiiso badan ayay noqon doontaa saan hore u sheegay Ciraaq ayaa dheeli doonto oo ciyaarahan adduunka 40 sano kadib ka qayb qaadanayso waxay is arki doonaan wadanka Norway oo leeyahay waxa ay wataan weeraryahanka ugu fiican ee qaaradda Yurub ama Ingiriiska maxaan ku raada Erling Haaland oo goolal badan dhaliyo Argentina oo difaacanaysa koobkan adduunka oo 2022 ku guuleysatay Algeria qaaradda Afrika ka socota ayay maaragtay wada kulmi doonaan haddii ay baydmo wadanka Austria iyo Jordan oo markii ugu horeysay ka qayb qaadanaysana waa ay wada kulmi doonaan ciyaarahan ayaana maaragtay dhici doono maalinta ku xigtana waxa soo afjarmi doono ciyaarta koowaad ee gurubyada haddii eeba idmo tafaashiil socodana mar walba waa idin la soo socodsiin doonaa xasuuqii shalay maanta waa laga reestay sheekooyinka bareeja ayay ahayn maanta laakiin shalayto kooxo ayaa isu awood sheegtay soodo inkastoona kubadda cagta iyo World Cup iyo waxaas aan ku fiicnayn haddana indhahayga soo jijiidanayeen shalay si fiican waxaan u maleynayaa ciyaarta ka hadlaysid ciyaartii Jarmalka oo Curaçao maaragtay 7-1 ku garaacay Mareykankana waa jasiirad yar Mareykanka ciyaartiisa waa maalintii ka horeysay ayay ahayd 4 gool iyo 1 ayayna ku soo afjarmatay laakiin ciyaarta ka dambaysa Sahro waa ay ka sii maaragtay adkaan doontaa maxaan ku raada qaab ciyaareedka waa ka duwanaan doonaa kooxaha qaar gruubyada hadda marka gruupka laga hadlo ugu daran ee la dhaho gruupka death group ama gruupka dhimashada waa Faransiiska Senegal Ciraaq Norway waa gruup aad u adag inkastoo Ciraaq ay tahay kooxda ugu yar hadda Norway ku xigto Senegal iyo Faransiiska ma aragtay aad ma aragtay ciyaartaasi ay u shidan tahay marka waa arki doonaa haddii eeba idmo ciyaarahaasi siday ku soo afjarmaan waxyaabaha kale aan ku dari lahay waxaa kamid ah Sahro jasiiradaha caalamka ay qorayaan in FIFA oo ah ma aragtay gruupka ugu weyn ee kubadda cagta ay soo jeediyeen maaragtay weydiisteen in lagu furo ciyaar dhexmari doonto Falastiin iyo Israa'iil si maaragtay FIFA ay uga shaqeyso nabadgelyada wadamo heshiiska inuu dhexmaro ilmaha ay 15 sano jirka ka yar ciyaarahana ayaa waxaa lagu wadaa in wadankan Mareykanka bisha September uu ka dhaco FIFA waxa ay tiraahdaa ciyaaro adduun ma aha laakiin dhalinyarada ma aragtay ayaa lagu dhiirigelinaya waxay ballan qaadeen 111 xubnood ee ka tirsan FIFA inay ka qayb qaataan waxaan isleeyahay aniga weli ma hubo newska lama soo saarin Soomaaliya inay kamid tahay
labada boqol toban iyo kowdan xubnood waxaa loo ogolaan doonaa inay ka qayb qaataan wadanka ruushka waad ognahay inuu maaragtay laga mamnuucay ciyaarista ama ka qayb qaadashada tartamada ciyaaraha adduunka maadaama ay maaragtay weerar ku qaadeen 2030koodii wadanka Ukraine waxaa la leeyahay waxa ku xigi doono hadda wiilasha ayaa dheeri doono 12 bilood kadib ama sanada dama dhamaadkeedana wadamada waxaa ka imaan doono gabdho